meel walba aad joogtaan islaan wacan waa walaashiina umu azhar yaa oo maanta idin wado alaabaha ilmaha maanta cunto yar u samaysanayay marka asxaabay subscribe-ka laaga yaa waa walaashiina idinku cusub marka isoo dhaweeya waa kaasaahe inta waxaan ku heesanaa 4 xabo ukun ah iyo wax yar oo karooto ah wax yar oo filfil aan ku darsaday wax yar oo xawaajiga isku darka ah wax yar oo basal ah marka qof kasta jooskiisa waaye hadaa rabin waa ka deysan kartaa intan waxaan ku heesanaa 6 xabo fiyaasi ama baradho sa u taqaaniinbo baradhada ilmaha aad ay ugu fiican tahay ukuntan sidoo kale ilmaha kaliya ma ahan dadka waaweyn hadaa way isticmaali karaan subaxda hilibka waa ugu maarmi kartaa xaajiga hadaa waa siisan kartaa alaabaha xaajigana waa soo wadaa yaa alaabaha martida dad wax dhan cabitaanka ila socosho wacan marka saas ina isku dhex gelisid waaye ma fahanteen ukunta aad ay u fiican tahay hilibka waa ugu maarmi kartiin yaa iyo fiyaasiga hilibka aad ay ugu maarmi kartiin ani ilmahayga wax kale ma siiyo waa yaabaysaa hadaa aragtiin maasha allah yaa ilmahaada 3 beri aa ugu dareemaysaa filfishna waa kaasaa cunto kasto aad karsanaysid filfisha ku darso filfisha way fiican tahay caafimaada laga helaa wax kasto yaa ilmahaada laakiin haddii cuni karin waa ka deyn kartaa laakiin cuntada kale waa ku darsan kartaa filfishaan u jeedino filfisha aad ay dumarka ugu fiican tahay qaasatan markaa umusha tahay markaa caadada qabtid kulli filfisha way ku caawinaysaa cuntadaada cunto walba aa karsanaysa waa ku darsan kartaa filfisha aad ay u fiican tahay ma fahantay marka filfisha meeshaan ugu baxnay hadda ani 4 xabo ukun ah iyo baradhada halahaas samaystay marka hadaa rabtid waa ka badsan kartaa marka hadda waa dubi rabaa ila socod wacan wanaagsan asxaabta marka waa kaasaa asxaabay waa kaas jibsigeeni saas quruxda badan noogu soo baxay marka geedka aniga waxaan ku jeclaaday saliid dhan kuguma harayo jibsiga daraayo ka dhigay ama qaleel marka waa kaas ya saas quruxda badan noogu soo baxay marka hadda waxaan gelayaa inaan dubitaankii galo asxaabay waa kaas hadda saliid yaraan ku shubay marka ukuntii aan hadda dubayaa iyo jibsigii aan idin tusay ukuntii hadaata aan qastay waatana ukuntii oo ii diyaar ah marka birtan waa ii kululaatay marka wax yar aan ku shubayaa markaasaan ugu shubo jibsigii wax yar aan kusoo shubayaa haddana yaa asxaabteyda jibsigii aan kusoo shubay waa kaas diyaaroo noo yahay ma fahanteen marka ukunta haddana waxaan ku shubaysaa yaa inaba caadi maaha lagama sheekeyn karaan ku dhah macaankiisa waaba yaabaysaa carabtiisa yaa asxaabay marka wax yar cusbo been aan kor ugu shubayaa haddaa jeceshahay haddii kale waa ka deyn kartaa marka hadda waa daboolayaa wax yar soo noogu huuro asxaabay markaan waa inoo diyaar daboolkan ka qaadaa ma fahanteen daboolkii aan ka qaaday marka waa gedinayaa ila socda ma jeedin saasaan u gedinayaa waaw lagama sheekeyn karaan ku dhahayaa caraftiisa intaaba ka joogi lahaabo yaa saasoo noogu soo baxay ka sheekeeya asxaabay quruxdiisa ka sheekeeya yaa asxaabay marka waxaan rabaa qaybtan kore soo noqday qaybta hoosena inuu noqdo waa isku fahanamaho marka daboolkii aan saaraa wax yar hanoo huuro asxaabay hadda marka waa noo diyaar yaa waa daminayaa marka daboolka ka qaadaa sida uu noogu soo baxay waa fiirinaynaa yaa caadi ma ahan aan ku dhah waaw maba laga sheekeyn karo yaa waa kaas asxaabteeda qaaliga ah waa kaasaa yaa lagama sheekeyn karaan ku dhah asxaabay waa kanaa yaa saasaan u jijarayaa ila socda yaa isku fahanna mayno marka ilmaha siisa rabaa asxaabteeda ilmaha aan u jijaranayaa هاي أصحابتي ده وحسان وجدودي
ukunta iyo jibsiga waaye guduud lagama sheekeyn karaan ku dhah yaa hore iyo gadaal basaani ugu guduuteen marka asxaabteyda waa kaasaa saasoo noogu soo baxay quruxda badan marka asxaabey waa kaas saasoo noogu soo baxay quruxda badan yaa saas guduudkaas aan ku dhahay yaanyadana kuley waa taqaaniin waa tii caagadaha ku jirtay marka ilmaha aad ay u jecel yihiin cuntada ay u socodsiinaysaa koobkaas caanahana waa caanaha iskaaga dejin lahaayeen marka saas nala socda asxaabteyda comment share kulli subscribe-ka kulli asxaabteyda waa kaasaa heesasa idinkaaga soo dhisay cuntadeena marka waa kaas qaybaheena dambo aan iskugu imaan doonaa insha allah